Wasaaradda Caafimaadka ee Itoobiya ayaa maanta sheegtay inay fulinayso tallaabooyin adag oo lagaga hortagayo cudurka furuqa ee monkeypox. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa 14-kii bishan wuxuu fayraskan furuqa u aqoonsaday xaalad degdeg ah oo soo wajahday caafimaadka dadweynaha qaaradda Afrika islamarkaana walaac caalami ah laga qabo inuu xanuunkani ku sii fidayo dalal badan oo Afrikaan ah. Wasiirka Caafimaadka Itoobiya Mectis Daba ayaa maanta hadalay siisay warbaahinta waxa ay shaaca ka qaaday in haba yaraatee aanu jirin calaamado lagu arkay fayraska dhaliya cudurka furuqa oo ka dhacay ama laga helay gudaha waddanka Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaloo sheegtay in tan iyo markii Hay'adda Caafimaadka Adduunku ay ku dhawaaqday in cudurka furuqa uu khatar ku yahay caafimaadka bulshada, ay dowladdu qaaday tallaabooyin ka hortag ah oo lagu xadidayo inuu cudurku soo galo Itoobiya. Tallaabooyinkan waxaa ka mid ah kor u qaadista ilaalinta xuduudaha iyo meelaha la doortay, kordhinta awoodda shaybaarka ee lagu ogaanayo cudurka, iyo xoojinta khibradda xirfadlayaasha caafimaadka. Agaasimaha guud ee Machadka Caafimaadka Dadweynaha Itoobiya, Mesey Hailo, ayaa dhankiisa intaas ku daray in dadaallada lagaga hortagayo in cudurkani uu soo galo dalka Itoobiya ay sii socon doonaan. Xogta laga helay Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegaysa in cudurka furuq daanyeerka uu ka dhacay 13 dal oo Afrikaan ah. Furuqa daayeer waa cudur uu keeno fayraska daayeerka kaas oo u kala gudbi kara qof ilaa qof, inta badan lagu kala qaado galmada. Mararka qaarna waxaa lagu kala qaadaa haddii qofka xanuunka qaba uu taabto shay ama meel uu qofka qaadi karayo xanuunka furuqa daanyeerka.